Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ku sameeyay qaabka ay u socdaan dhismooyinka ku socda xarunta laanta ilaalinta canshuuraha, xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliiska, guriga martida ee Janaal Kaahiye iyo taalada dhagax tuur oo dib u dhis ballaaran ku socdo. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa si isxilqaan ah ku dhisaya xarumaha laanta ilaalada canshuuraha, xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliiska iyo guriga martida ee dugsiga tababarka ciidanka booliiska ee Janaal Kaahiye uu yeelanayo, iyadoo taliska asluubta Soomaaliyeedna uu gacanta ku hayo dhismaha taalada dhagax tuur oo heer gabagabaha maraysa, isla markaana ay ku soo jiidanayso bilicda dhismaha lagu sameeyay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa talisyada asluubta iyo booliiska ku bogaadiyay dib u dhiska dalka iyo gudashada waajibka ka saaran ka shaqaynta sugidda amniga dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Mudane Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa intii uu guda jiray kormeerkiisa waxa uu xerada tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Janaal Kaahiye ku booqday ciidamo loo diyaarinayo ama loo tababarayo qaadashada sugidda amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed, waxauna kula dardaarmay inay noqdaan kuwa wax badan ku soo kordhiya ciidanka marka ay dhammaystaan tababarkan ay hor yaalaan howlo waaweyn. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa gudoomiyay shir looga hadlayo dardargelinta amniga caasimadda oo lagu qabtay xarunta taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir, ayna ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale. Waxa caawa sharaf noo ah in Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed uu nagala soo qayb galo kormeer guud oo lagu sameeyay mashaariicda socda ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee horumarinta ah oo ka soo bilownay qaybta ilaalinta canshuuraha, xarunta cusub ee loo dhisay hoggaanka daraawiishta, xarunta cusub ee loo dhisay hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo guriga martida ee loo dhisay akademiyada Janaal Kaahiye, isla markaana uu idhiis ku soo arko tababarada ka socda akademiyada. Waxa kale oo Ra'iisul Wasaaruhu nagala soo qayb galay shir ka dhacay qaybta guud oo ku saabsan amniga iyo sidii loo dardargelin lahaa. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.